محمد فارح دعس وعن اسمه صوت في أنواع رواية شارع مومي أحمد محمد منيرو محمد بلحن عبد الرحمن فاتح نعمان سكير عبد الرشيد الشيخ حاتم محمود أو بروفيسور أبو بكر مصطفى سلطان سراج waxaad maraysaa intaasoo hadda meesha joogtay badankeed haddaa magacyada wada aqaan waxaad ka garanaysaa dad soomaaliyeed walaalo ah oo is-yaqaan wax walba wadaaga wixii khayra oo dhan wadaaga ayaanu nahay saraaxatan adigana saasay kugu badisaa midnimo soomaaliyeed annagana taasay noogu badisaa wixii midnimo ahaan jirtayna haddii horaynu macnaheeda midnimo la-aanta waxaynu ka dhaxalnana haddaynu haynaa aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa runtii anugu waa furayey munaasabad ninkaa odaga ahi waa odayaasha reer Göteborg sidaa warka ku ahaan jiray raggii hadda u gurmaday dalka laba nooc baa loo tagaa dalka iyo waa u shaqo tagaa nina wuxuu isku dayaa damiirkiisa ayaa danqado inuu dadkaas u taro dadkaa wax u tarayaa dalka ma badna saa warka ku hayno ma badna laakiin waxaa badan duruufka u shaqo taga oo waddanka inay iyagu ka faa'iidaystaan taga laakiin dadka inay u faa'iideeyaan u taga waxaan filayaa waa jiraan laakiin waa yadii waxaan ka soo qaadayaa aqoontayda yar oo gaaban haddii haddana duruufka u shaqo tagaan ahaan lahay caasimadaha boosaaso garowe meelahaas la yidhaahdo waxaa jooga qolada waxaa NGO qolada Soomaalidu ku ducaysato kila dhaal soo gaar ururkaas meelahaas kama fogaateen laakiin waddanka meelihii loola jiray gaariwaa ama hadda cadawada ku daawado Soomaaliya dhulkeeda meelaha wuxuu ka mid yahay waddankaas shalaalaadka biyaha iyo beeraha iyo buuraha iyo cajiiba weyn aad iyo aad baan kusoo dhaweynaynaa intaana walaalahaaya sharaf bay ku tahay inay munaasabada kusoo dhaweeyaan waxaan is leeyahay furitaan bay aniga iga ahay waxaan kusoo dhaweynayaa marka odayaasha firsida dadka iga